diinta deegaan ahaan ka soo jeeda xaafadda Axmed Dagax iyo gobolka Hawd ayaa waxay si adag uga hadleen dhul ay sheegeen in xukuumadda madaxweyne Biixi ay ka qaaday dad danyar ah. dhalinyaradan iyo mujaahidiintan ayaa waxa ay fariimo hanjabaad u muuqda ay u direen mas'uuliyiin ay sheegeen in ay ka dambeeyeen in dhulkaasi laga qaado ninkaasi mujaahidka ah. tacadigan idku dhacay baan anagu bal saddex kelmadood dawladda ka oran la ismaan lahayn waa la soo caligareeyeen doonaa anigu ismaan lahayn laakiin waa nasiib darro inaynu maanta isu siyaad barreeyno inaynu maanta noocii aynu waddankan ka kaxaynay aynu inagu isu isticmaalno laakiin de rag baa cindigooda ay ku jirtay rag bay cindigooda ku jirtay inay haddii dalka dib loo qabto ay noocaa la soo baxaan waanay la soo baxeen mana sii soconayso ninkan iid cagoole ninkan la yidhaa xergeeye ee had iyo goor imika ka hadlaa corona 19 ee kolba 19 dila 19 eedha way ka kaceen boqocaddii inankii iid curadkiisu ku dhintay maanta hadduu tacadiga noocaasa ku sameeyey kan aynu ku hadlayna iyo corona 19 kan iyo cudurradan aynu ku hadlayna meel baynu ku duuduubayo bannaankaynu isugu soo bixi doonnaa bannaankaynu isugu soo bixi haddii nidaamkani wada lahayn sidiisa loo fulin waayo oo ummadda loo cadaalad samayn waayo halkaasaynu ku tiirin doonnaa miciyaheenni baynu la soo bixi nin walba asalkii wuxuu ahaa ayuu la soo bixi doonaa arrintan ninkan iid hergeeyaan ninka la leeyahay mala aqoon badan muu lahayne hergeeyo mala waxa kugu qurux badnaa inaad ku eekaato farmiisiyadaadii inaad ku eekaato iid ina yar baad hayd maalmalay hergeeyo dalkan markii gaani ku doobiyaayay shanta galabnimo in xaran jiray asarka markuu in xaran jiray dunida waxba kama adogeyn iid wuxuu ahaa iid cagoolaha maanta aad cagafta gelisay ninku diyaaradda helicopter ku qaatay buu ahaa waa ninka hadda lixaad kale kuweega lixaadka qabanay iska daadalkooda marka waxaan leeyahay war ha lagu soo noqdo ummadda nidaamkan dawligeenu sukeennay xabagtayno ha lagu soo noqdo in sidiisa loo fuliyo war isbitaalkan maanta aad ka dhex shirka jirayd ku dhex qabatay dheyli beertiisiiba maqaaxiya oo hudheela waa isbitaalkii Hargeysa ee ugu weynaa ama qaranka Soomaaliland la ugu weyn ee maanta xanuunada jira iyo inkaaraha dhacay ee cadhada alle dadkii in meel la dhigo war looga sameeyo ayaa hudheela boqocada yar inankiisa lagu dilay nidaamkii hore ee daayir dul noqon yahay iyo dul siiraan yahayba ay siiyeen waxa maanta hantidiisa cagta loo mariyay ee loo burburiyay isna uu ku xiran yahay maanta ilaa xilliga waa dib baa looga sheekayn marka waxaan leeyahay war waxaanaynu kabkabannay war xadkayaan laga bixino ummadayaan la gaadhsiinin meel aan hadhow laga soo celin karin dhacday 31 bishan aynu ku jirno bishan muxuu ahaa dhamaatay soo dhaafnay nin la yiraahdo iid cagoole oo runtii ah nin maskiina oo wasaaradda caafimaadka dhinaceeda deganaa 19 kii degay waxa dhacday ninka in agaasimaha caafimaadku uu target ka dhigtay wuxuu ka dhigay maskiin baa muxuu ahaa miska fuulo leh ninkaasi dawladda Axmed Siiraayo markii ay dhalatay sanadkii horeeyay ayaa halka maalmaha kamid ah wasiir duul arrimaha gudaha uu haystay fulin baa lagu sameeyay wiilkiisa curad baa halka ku dhintay markuu ku dhintay xukuumaddu markaa inankiina magdhow baa laga siiyay meeshaana waxa loo siiyay sharciyad inuu deganaado waxa uu isweydiin leh agaasimaha caafimaadku waxa halkan dhinaca ka xiga waxaan ku macradkiyo dhulkii dawladda xagan kale waxa ka xiga isbitaalka waxa ku dhex yaala hudheel sababaha uu kuwa u eegan waayay ee uu eegtay maskiinka waxaanu cambaaraynaa ninka fulin baa lagu sameeyay waxaanu ognahay xukuumadda Soomaaliland runtii in fulinta ay sameeyay ay iska yar tahayba meelo 10 sanadood isku haysto fulinteeda soo bislaato haba yaraatay aan la fulin baa jirta iid haddaba waxa ka uray ayaan aad iyo aad ula yaabanahay uu xiran yahay iminka mudawiga uu xiran yahay qalabkiisii iyo alaabtiisii wixii oo dhan waa la qaatay fulin baa lagu sameeyay xoogan arinta waan cambaaraynaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaan leenahay war meelo kale wasaaradda dhulkii wasaaraddu uu banaanaaye
iid oo inankiisii curad meeshaa lagu dilay oo loo siiyey oo haystay dokumentiyadii daahir yaale madaxweyne siiraaya intaaba haystay waxba kamaad qurin haba yaraatee waxaanu leenahay war maskiinkaa taargid baad ka dhigatay baan leenahay agaasimaha wasaaradda caafimaadka macradkan jumeeriyaa dhinacan ka xigoo dhulkii wasaaradda haysta haddii wasaaradda dhul u baahan tahay dhulkaa ka faraha weyn lay qaadan lahayd maqsinkii yaraa ee iid ee koonaha wasaaradda ku yaalay sababta gashay garan mayno waxaanu u soo jeedinaynaa xukuumadda somalilan ninkaa maskiinka iid waa nin curyaan ah wuu xidhan yahay wiig buu imika ku xidhan yahay saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa hantidiisii lacagtiisii qasdadiisii wixii oo dhan waa la qaatay qalabkiisii iyo waxaan ku yidhi dokumentiyadii oo dhan waa laga qaaday waxaan u soo jeedinaynaa in alaabtiisii iyo waxaan ku yidhi dokumentigiisiina loo soo celiyo isagana faraha laga qaado waxaanu leenahay war inankiisii curad buu ku waayo jaamici ahaa buu meeshaa ku waayey agaasimaha caafimaadka waxaanu leenahay agaasime ma miskiin baa miska la fuulaad kaga dhigtay arrintaa waanu cambaaraynaynaa haddaanu xisbiga gobolka haddaan nahay guddoomiye xisbiga gobolka Maroodi Sheekh waanu cambaaraynaa waxaanu leenahay tacaddi baa ku dhacay muwaadinka waxaan ku hadlaynaa arrintan xariga iid waanu cambaaraynaa horta xarigan iid lagula kacay iid wuxuu degay meeshan 19 waxa lagu dilay inankiisii oo jaamacadda Adams ka baxo mastara ayuu maayarkan maanta hantidiisa baabiyey iyo baro saabkii xamarjil oran jiray ku dileen dilkaas markuu dhacay madaxweynihii qaranka Siiraayo warqad sharci oo qoraal u siiyey inuu foodhiga dago magdhow baaba loo siiyey meesha iid waa nin curyaana waxaan u degay 19 hadday wasaaradda caafimaadku maanta jiri waan ka raraya hudheelka may ka dhex rarto barti coronaviruska lagu baaray ku dhex yaala oo bulshada ka xidho ninka xirgeeyay leeyahay ayaana arrintaa ka dambeeyay maayar iid hantidii u taalay ilaa 19 ku shaqaysanayay iyo xoolihiisii xirgeeyay wax rartay maayarka meelay geeyeen antidaa u taalay laba garanay imka meelay taala alaabta iyo xoolihiisii oo dhan isaguna wuxuu xidhay muddo 8 cishaa xadhigeedu aan cambaarayna arinta xaqdarrada ah ee lagula kacay iid Ibrahim muwaadiniin Ibrahim oo ah kolay ragii wadanka soo halgamay oo nin naafa ah oo hantidiisii iyo tacabkiisii bal lagu baabiyey looguna awood sheegtay xoog dawladnimo iyo awood dawladnimo oo runtii aan u aragno inay tahay xaq darro iyo baadil iid waa muwaadin Somalilander ah oo runtii hore ugu waayay wiilkiisii curad meesha maanta xaq darradu ay kaga dhacayso ee xoogga dawladnimo loogu adeegsanayo isagoo ilaa iyo 19 halkaasi deganaa una haysta sharciyad iyo waraaqo runtii wasiiro ay saxeexeen oo dhulkaas hore gulbada loogu bedelay markii inankiisa curad uu ku waayay meeshii hore ee jajabka loo dhan jiray dhakhtarka weyn agtiisa oo loogu bedelay meesha yare foodhiga ah ee maanta hantidiisii iyo tacabkiisiiba lagu baabiyay isaguna ilaa hadda xaq darro uu xidhan yahay cidda xaq darrada iyo awood sheegashada wadana waa ashqaas gaar ah ku suntan oo runtii ay ugu horeeyaan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo maayirka caasimadda Hargeysa oo runtii shaar dawladeed iyo awood dawladeed adeegsanaya iyagoo markaasi baawarkii dawladda u isticmaalaya muwaadiniin masaakiina haddii sharciyad sax ah iyo cadaalad lagu shaqeynayo waxaynu ognahay dhakhtarka weyn waxa ku dhex yaala hudheel weyn oo muwaadin Somalilander uu leeyahay waa isbitaalka laftiisa dhulkiisa uu lahaa weeyaan
muwaadinkaas wax kale loogama baydhin waa madaxweynaha faamiligiisa iyo qabiilkiisa lagu tixgelinaya